السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أخيارتي إدغي سنيساي kanaalkeena fikrad ganacsi. ugu horeen dadkaan jeclahay ee ku xiran kanaalkeena fikrad ganacsi waxaan uga cudur daaraynaa waqtiga dheer ee aan kala maqnayn duruufo jira awgeed. maanta waxaa idin wadnaa muuqaal aad u xiiso badan. muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay haddii aad qorsheynaysid inaad samayso ganacsi kuu gaar ah ama aad qorsheynaysid inaad samaysid hal abuur adiga kuu gaar ah, waxaad u baahan tahay waxyaabo aad u badan kaasoo kuu rumeynaya ama kuu hirgelinaya mashruucaaga ganacsi. muuqaalkan waxaan ku soo koobay 3 qodob oo aad u muhiimsan kaasoo kaa caawinaya in uu rumoobo hal abuurkaaga ganacsi ama uu guulaysto. 3dan qodob mid ka mid ah ama dhammaan haddii la waayo way adkaanaysaa inuu horumaro mashruucaaga ganacsi. ugu horeen waa inaad leedahay bulsho bartilmaameed adiga ku ah, kuwaasoo kuu noqon doona macaamiil danaynaya badeecada ama adeegga aad iibinaysid. ugu horeen waa midaas, waa inaad leedahay bulsho kugu xiran, bulshadaasoo danaynaysa badeecada ama adeegga aad iibinaysid. sidaan ognahay ganacsi walba wuxuu ku xiran yahay bulshadaasoo kuu noqoto macaamiil. haddii aad suuqa la imaado waxa aysan danaynaynin bulshada, waxaan ognahay maanta inuusan kuu gadmaynin, mana horumar ganacsiya. qodobkan wuu ka maqan yahay. qodobka labaad, qiimaha waa inuu macquul yahay. waa nula jeedo in ay bulshada iibsan karaan badeecada ama adeegga aad adiga suuqa soo bandhigtay. sidaan ognahay waxyaabaha aadka u raqiiska ah xitaa adiga haddaadan u baahnayn waxay kugu kalifaysaa inaad soo iibsato. qodobka saddexaad oo ah qodob aad u muhiimsan, adiga ma awoodaa in aad daboosho baahida macaamiisha xitaa haddii uu kordho dalabka. marka haddii aan si fiican u eegno 3dan qodob waa qodob aad u muhiimsan. waa 3 qodob oo ku xiran inuu horumaro hal abuurkaaga ganacsi. ugu horeen waa inaad leedahay bulsho bartilmaameed ku ah businesska. inta aadan samaynin kahor waa inaad eegtaa badeecada adiga aad suuqa la imaanaysid ma leedahay bulsho hadhow kuu noqon doonto macaamiil. qodobka labaad, qiimaha ma noqon doonaa mid macquul ah oo bulshada ma awoodaa inay iibsato badeecada aniga aan suuqa la imaanaya. qodobka saddexaad, ma awoodaa in aad daboolo baahida macaamiisha xitaa haddii uu kordho dalabka. 3dan qodob haddii aad ka adkaato oo hal abuurkaaga ganacsi aad ka hesho 3dan qodob, waxaa ku dhiman oo keliya in aad bisinka ku bilowdo oo aad horay u socoto. balse haddii laga waayo dhammaan qodobadan ama qodob ka mid ah, fadlan ha ku daalin ee raadi mashruuc ka duwan oo laga helayo 3dan qodob. aad ayaad u mahadsantihiin.